ahaantii in madaxweyne xasan sheekh oo yiraahdo ma ogolin marnaba inay Soomaaliland gooni u istaagto waa hadal fiican waana ku raacsanahay madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana leeyahay marnaba gooni ha u istaaginaha Soomaaliland ma ahan wadan islaameed waa dad Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa shakhsi ahaantayda inay weligood gooni u istaagin Soomaali dhamaan isqabsato hal noqoto saasaana fiican waa ku raacsanahay Soomaaliland wax walba oo ay u baahan yihiin in la garab istaago maadaama madaxweynuhu ku dhawaaqay waa hadal fiican oo la qaadan karo oo marraba wax dhib aan u geysanin ama saameyn aan u geysanin أنا مقعد بلاو يوسف عبدار عدم فكر كي كديتو Soomaaliland Soomaaliya arinta xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay أنا horta ahaan fikrad ahaan way ila saxan tahay waayo xasan sheekh maxamuud wuxuu ka dhawaajiyay Soomaaliland inuu wax walba u ogol yahay laakiin aan ka yeelin goon istaag Soomaali in la gal gooyin cid yeelaysan malahan dawladnimada Soomaaliya ka dhisan Soomaaliya hadii la gal gooyo weena meesha ka dhacayo marka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya aad ugu taageersanahay waa madaxweyne cusub in la soo dhaweeyo way mudan tahay mar walbana waxa macnaha wanaagsan in dawladnimada Soomaaliya ee qarannimada Soomaaliya midnimada Soomaaliya laga wada shaqeeyo dalkan Soomaaliya leh dadka shisheeye malahan dalkan dadka uu harar lahaa anaka hadaan isma caaradno anaka hadaan dhan qof walba goon istaag sameeyna doodaan si xun oo aragnaa marka waxaan jeclaa walaalina Soomaaliland inay arintaas soo dhaween doonaan wax walbana waa loo ogol yahay wax xaqooda cid dood siinaysa malahan madaxweynaha uu sheegay laakiin goon istaag cid Soomaali ka yeelaysa malahan Soomaali kale marka sasa uu baxaya raacsi waa ku raacsanahay arinta waxa la soo diiday Soomaaliland marnaba loo ma ogol inay minaha goon u goosto dhaqaale wax soo looglaa laakiin goon u goosto habeenka xalta waa wax laga yeelay ma fahmno goon istaaga jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu arinta uu ku hadlay iyo ficiladu sameynaya isku mid maaha madaxweynuhu say wada ognahay markuu leeyahay goon istaaga jamhuuriyadda Soomaaliland ma ogolin halka kan wuxuu ka sameeyaa madaxweynuhu waxa weeye saami qaybsigii xukuumadda dhinac buu u badiyay